doorashada gudoomiyaha ay yeelan doonaan ardayda Soomaaliyeed ee iyagu wax ka barta jaamacadaha ku yaala wadankaasi Malaysia sida uu faafahinta warkan uu ku eegiyo wariyahayaga Azari waxaa maanta si weyn uga bilowday caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur doorashada ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia kaasoo sanad waliba la doorto hoggaan cusub si loo helo midnimo iyo wada shaqeyn u dhaxaysa guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur doorashadan ayaa ahayd mid si aad loo soo qaban qaabiyay isla markaasina ay ka soo qayb galeen guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur waxaana xusid mudan in sanadkan ay codeeyeen ardayda Soomaaliyeed oo kaliya halka sanadii hore ay codeyn jireen guud ahaan Soomaalida ku nool caasimadda wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur dhammaan dadkii ka soo qayb galay doorashadaani ayaa waxa wajahooda ka muuqday sida ugu faraxsan yihiin in si xor ay u dhiibtaan codkooda isla markaasina ay doortaan musharaxa ay jecel yihiin inuu qabto hoggaanka cusub ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia musharaxiinta u tartamaya hoggaanka cusub ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia ayaa tiro ahaan waxa ay gaarayaan 4 musharax oo midba uu jecel yahay inuu majaraha u qabto ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia waxaana si buuxda ugu guuleystay xilka gudoomiyenimo ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia Mawlid Maxamuud oo kamid ahaa musharaxiinta ugu cadcad ee u tartamaya xilka gudoomiyenimo ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia waa kan Mawlid oo cabiraya dareenkiisa ku aadan qabashada hoggaanka cusub ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed markasta ay joogaan iyo gaar ahaan ardayda Soomaalida reer Malaysia intii hol ka soo qayb gashay intaan ka soo qayb galinba aad baan ugu faraxsanahay qaabka doorashada u dhacday runaantii oo ahayd qaab cadaalad oo cid walba ku qanacsanayd waxaan mahad gaar u soo jeedinayaa guddiga doorashada hawshooda si fiican u gutay guddiga jaaliyadda dhammaan ardayda dhan waan u mahadnaqayaa bahda saxaafadana mahadnaq aad ballaaran ayaan soo jeedinayaa hadii la hadmo ugu dambeyn waxa u suurta gashay telefishinka caalamiga ee Somali Channel inuu mikrofoonka la dhex qaado qaar kamid ah guddigii soo qaban qaabiye doorashadan iyo dadweynihii kale ee ka soo qayb galay marka xalintiina maanta matalaysaan dadkii ugu badnaa ahaa dadkii maanta inoo yimid in ummadda Soomaaliyeed dhammaanteena markii aan iswaafaqno oo aan isku raacno in shuruudihii iyo nidaamka la dejiyay aan raacno inaan matali karno ummad jirta at the same time raaci karto qawaaniin sida dadka qaar ay naga sheegaan oo ah inaan ahayn dad caankaas ah waxaan ka mid ahay macallimiinta jaamacadaha wax ka dhiga jaamacadda Madina International University waxaana la igu casuumay inaan ka mid noqdo guddiga kormeerka ama muraaqabada habka ay doorashada u dhacayso waxaana aan ka marqaati kacaya oo goobjoog ka ah maanta in doorashadu ay u dhacday si cadaalad ah oo nidaam ah iyadoo runtii aysan jirin waxa bay yiraahday musuqmaasuq ah ama corruption ama isdabamarin inta aniga cilmigayga oo ka warqabo oo arkay waxay ahaayeen arrimo si sax ah u dhacay waxaana la doortay gudoomiye Mawlid ayaa la doortay oo loo doortay gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia sanadka 2012 السلام عليكم أنا عبد الألف عثمان حرسي جوجو كنول ودنكا ماليشيا جارهان عاصمة كوالالمبور وحد عدي دورشو رسمي أو كد عدي كوالالمبور جامعة يو هذا يونيفرسيتي إسلاميك أنا bulshooyinka Soomaaliya ama community-ga Soomaaliyeed ee meeshan joogo waxaan maanta aan ku qanacsanahay aan ku faraxsanahay sida ay u dhacday doorashada waana ku qanacsanahay haddana waxaan u mahadcelinayaa janaalka Somali Channel ayaan u mahadcelinayaa doorashada soo uga qayb qaatay iyo qaybta libaax oo ka qaatay waxaan idinku mahadcelinayaa sida aad maartay ugu jirtaan halganka iyo sida aad ugu soo diyaar garowdeen wacyigelinta dadka Soomaalida ee meesha joogo iyo meel walba dadka Soomaalida ee joogo sida aad ugu doorteen waana ku mahadsantiin dhamaantiinba dalka Malaysia ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ay ku badan yihiin ardayda Soomaaliyeed ee waxbarasho doonka ah waxaana sanad walba wadanka Malaysia lagu qabtaa doorashooyin cusub kuwaas oo lagu doorto hoggaan cusub ee yeeshaan ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Malaysia sanadkan ayaa waxa ay ahayd sanad ka duwan sanadihii hore waxaana dhacay doorashooyin si aad ah ay ugu mideysnaayeen guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata wadanka Malaysia waxaana sanadkan lagu soo kordhiyay shuruudo ay ka mid yihiin in ardayga codeynaya uu haysto baasaboorka Soomaaliga kaas oo ah baasaboor ka duwan baasaboorada hore cadeynayana in qofka uu yahay Soomaali kana mid yahay ardayda wax ka barata wadanka Malaysia sidoo kale waxa shuruudaha ka mid ah inuu ardayga haysto
ID card kaas oo cadeynaya inuu ka mid yahay ardayda Soomaaliyeed ee sida tooska ah wax uga barta jaamacadaha iyo kuleejyada kala duwan ee ku yaala wadanka Malaysia shuruudahan ayaa waxa ay ahaayeen shuruudo si aad ah u adag isla markaasina ardayda Soomaaliyeed ee cod bixinaya ay si aad ah u qabatay shuruudani balse waxa fududeed in la helo dad codeeya isla markaasina shuruuda u hoggaansamo waafajiyana sharciga ay soo rogeen guddiga ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Malaysia Ahmed Abukar Azhari Somali Channel Malaysia